سمعتها لي ما تاغنا ما مغليسان دارو gabadhaas laandeerada halka istaagtay adeero haykaas daaroodu magaca daaro sabcan Allah ala baadi kul way talabaad waxa balan qaadaya inta arooska uu ka dhacayo hanad wax dagaal ah adeerka naga dhaxaya ma jiro arooska waxa weeye dagaalkii aan ku waday داير علينا كنت رسليسي هي horta maamulyo silwan dheeraa bay u hadashay laakiin daahir hadday tii abtiliibaan dhacdo butsaale daahir tii soo xir hadday tii abtiliibaan ku dhacday oo maamulyo ku dhacdo taaro xigee aadaysaa bidiyo maxaa sameynaysaa Usmaan Carab markaa maxay ugu dhacaysaa nin baan haystaa abtiliibaan iyo aroosay nin baan guursanay what are you talking about abtiliibaan ugu dhacaysaa gorlaan dheeraa weeyo halka aniga mikrofoonka la siiyo aniga sidaba dabalulka iyo faanka iyo beentii waxaas anima jecdo aniga waxaan jeclahay nolosha dhabta ah ee qiyaali ku dhisnayn qofku inuu wajaho hadday is aroosayaan halad iyo maamulyo Allah subhanahu nin naagu waa is aroosaan gurigoodina tagaan xaafadooda isku aroosaan xaflad ay ku dhigtaan hadday maamulyo soo gasho TikTok oo leeb soo furato oo tiraado waa arooskayga hal ay imaamado waxay ka dhigan tahay in maamulyo libaax lagu garaaco gifti la siiyo dhowr milyan oo mataqaanaa koonis ku dhacaan runta taas way meesha loo socdo haddii maamulyo habeenkaasi sidii lagu yaqaan xeerka ka dhashay daaroodka albaabada ka xirtaan iyagu ma waayaan in ay cala cashaynaysa adkaysa xaq igu male anagu ida moogta anaga gabarnimo iyo Soomaalnimo iyo hooyanimo yaan ku ixtiraamayna iyo aroos ay tamaana iyada moogta anagu moogta iyada xool lagu male rasuulnimada anagu ma aaminsan moogta maamulyoon haddii qiyaali gasho haddii nin hadarto ninka hal isku sanaya indii xaq waxa uu leeyahay xaflad dhigato bambaaso ugu tago Nairobi ugu tagaan Kenya ugu tagaan arooskooda ay dhigtaan laakiin waxa meesha loo imaanayo sheekh waa koonis haddii habeenkaas koonis weyso oo wax daaradnimo u yimaadey weyso yeesa aniga iyo ma sheegan nacnac nin baan heestaa ariya nin baan heestaa nin daysto ninka waa heestaa iyo ku heestaa ninka meesha waxa la gabadhu inay laan dheerayso inay tor u soo baxaan in libaaxidu ay hawada qariso in shaashadu ay buuxsanto in la yiraahdo alla ilaahay caawa gabadhii aroosada ahayd waa la imaamaday oo si sharaf leh lagu soo gurmaday oo torkeeda u soo baxay weey waxa u imaanayso sambuurada loo imaanay haddii gifti u baahnayna hadda shacabku sheeg haddii gifti u baahni ninkayga ana ku sheekaysan sambuurada habeenkaas waana ka baxwan wax ka quseeya haddaan gifti rabo iyo haddii gifti la isiiyo aniga hadda idin sheegaya falaawar irir Soomaali uma baahni hadda fakti ku sheegay 18 milyan haddaan ka waayo giftina Mooriyaani iyo shuruuran gifti kama helayo arooskayga ku sheegay baan kaaga sheekaynaya let me tell you something I'm North American hanana North America jooga arooskayga Minnesota ka dhacaya walay xambaaraya anaana ku tusi doona arooskayga soo ekaado don't be jealous baan ku yiri adeer maalintan guursanayay nin Maxamuud Saleebaana baan ku talagalay in cirkii dhulka laga qaado hello adoo maskiin oo gaalkacay barbar ku gooyay aniga rabtaa inaad arooskayga maamushid wariyaa han ninkay guursanaya ma aragmiya geesiga baarqabka iyo doobiya dhaasoo ma aragmiya habeenkaas baan ku yiri doon har ana waxaan islahaa awal iska daa waa taqaanaa iyo laakiin waxa ka hadlaaya inaad qayrsataa lagu qaat laakiin hadduusan arooskii qarniga noqon xafladayduuna xafladii qarniga noqon weliga hay waraysan you understand what I'm saying you don't know me I'm American and he's Canadian African joognaa badna moodi waxaan kuu sheegaya in adeerkayba laabta iyo ka jiifaan ku iri ka naxow nafta waa nacabkow ku samiir jealous foqol jealous intaas inaad ka fiicantaan ku moodayay laakiin I know you and thank you very much flower irir Soomaali leeyahay ana hadda kuu sheegaya ma baani waa badan oo jeclaha jira oo hawiye ah oo habar gidira oo sacad ah oo saleebaan ah oo cayr ah oo saruura jira hal flower ay soo dirin أنا دارود إسماعيل
وكاس اسمان عرب هدر سو صارني لوغديدا عسلاتay baan ku yiri xiniye raggi doobi jiraan ka dhasha aku salaamaya shilan hay soo dir hana iimaani okay arrin ma amliyunay hadda ka hor noo sheegtay waxa tiri markii ninka xawaas ku dhacdeen waxaas lahaa waa lagu ciiray ee dani maxamuud salaawaan guushatay gifti baad helaysaa oo nin qabiilkiisa taakiini kara weeye oo doobinayo mid qaadanaya saasaa ninka u guursanaya tadarta codka hadda mid ku dhigaysi karaa waxaan ku sheegay daaradku waa cajiib daaradku dad waalwaalana way yihiin dad suuro badanna way yihiin dad mataqaanaa qiyaari iyo faanku noolna way yihiin iminka waxaad diraysiin arooskii ugu horreeyay lagu tuugsanay oo leeyahay waxaan ula siiyo arooskii ugu horreeyay tuugsiga labi arooskii ugu horreeyay hataa halka anaa wada hiidku gaari waa weli هذا دايرة وادمر رالي نقو كجو أنا ألتقيني هوية ما صيرسن ويدا عدا هذا فريعي نو فريعي ما يقعي ما فريعي هذيك هذا الفريسيك حسن ما مليون أنت خلاص يا الله كبرك خلاص كان وحو أجيهاي الله بيتوانك بشة markii gifti la waayo aroos loo galatay arooska waxaan ogeyn qole aad geli doontaan adiga iyo haladaaka qole waa gelaysaan daaradoosan si joogi doontaa wixii 12 bisha ka dambeeya habeenkaasi ma jaarsan aadi doontaan ma garreed iyo raxweyn baad ka dhibi doontaan ismaan baa مرة محمد جاي يوصل على دونتا أنا عيدونو أنا واحد يقول شيء هذا إنجاز مال إحدى الحميس ولكن ما كان بحر اسمع العرب يا مغلق سنوية بوران نحكي لي مغل مجرى ويا أردا مليون عدنا قلي ما يسعدنا وما صعدوا أكبر دارو إسماعيل وما شارتين وربعي أنا وي دلا شيء ذا بدري ما يسوى كل درنا وحوي كل نعم ما يسوى أكبر ولقت قولي سنشرتي أو كذا قولي سنشري أبي هذا قولي سنشري أيضا هو قولي سنشري لندن داي سكرت ميس marka adigu adin wad ku daraysanaysaa iyo wareerkaaga wad ka baxaysaa iyo oday ogaato inay ku daraysan sabab baa ku cadayna gabadha ninka ay guursatay nin Cabdi Ciise way Cabdi Ciise la sheegay hal giftar ma laha Cabdi Ciise la sheegay hal giftar ma laha ma milyuuna waxay u guursanaysaa inay ku jirto Soomaa inta madaxa madow iyo ma jirteen baa la sameeyay Soomaa man kale هذا كاي ما يبعد بعض هذه على حال شيكada waxa la yiraahdaa dambal baan ka qoriyaa guurkii loo dhigay guurkii ugu horeeyay ee ka dhashay isbahaysiga giftidoonka beesha ee mujarteen waxa weeye waxaynu arkaynaa doorka habeenkaasi Cabdi Ciise ay ka qaataan 12 bisha iyo inta u soo baxda محمود سليماني مجتين ما تقالوا كوكاش وكال باليهدا كوكاش وحاس أمالين يا عبين قاعدين جبت لوايو إن ميك توصل سوق عدونه وحاسسين سالين يا عبين قاسي مرك جبت لوايو إن محمد بلوغ الله بالدور ويا ريم محمد وريا ريم محمد وراوني مك محمد داود وريودو وريا الصمالو ها وين دقيقة كفايديشتو إن محمد نوم الصعود ذلك ينتهي بها ساقول مال نوم الصعود من كوريش وكو طلبات إن تداروا جدا وحا حرق وحير ومع المفهوم ديار جروب بام بلو باهي نكاون الله
halkaa madashaas inay nooga ceebeen baan rabnaa gabadha sharafta leh oo laandheerada ah oo waxa weeye dadkii talin jiray ah inay habeenkaa baarqabayso oo ay laandheerayso oo baa loo baahan yahay soo garan maysaan haddii halkaa guuldarro ka dhacdo maamulyoon ma guuldarraysane daarood oo dhan baa guuldarraystay mid yar iyo mid weynba guuldarradu waxay u imaanaysaa reerkoo dhan bay u imaanaysaa waxaa halkaa ka dhici doona xifaaltanka waad u jeedaa irir soomaalo odbahoodii wata baa halkaa soo fadhiisto oo yidhi annagu waa idin daawanaynaa guuldarraana ka dhacaysa halkaa war waynu guulaysanaynaa idinka ilaahay waxaa kaloo farayaa qof kasta oo daarooda loogada maamulyoona soo qaato reerka arooska ha soo qaato anu wadda markaan degto idinka ilaahay baan soo qaadanayaa 3 beri ama 4 beri oo hadhay soo ma ahan 12 bish soo ma ahan asbuuc haray thank you landere qof allaale oo daaroodka xalaasha wada wiil iyo gabar baan dhalayaa doombire iyo daarood baan dhalayaa haddii xagga aan dhali waayo hindiyan aad iyo waad ku soo shubayaa maya wiilka dhalaysad waa daarood waa codki weeye waa daarood baa loo bixinay gabadhan waxa weeye doombire dareed inuu ku xigeenkii weeye idinka ilaahay aad iyo haween u filaynaa waxaynu samaynaynaa loogada inoo ballana diyaar garowba inoo ballana madashaasi lifeka markii saa loo soo fadhiisto aroosku usoo fadhiistaan horta ugu yaraan waa inay 10,000 ay daawanayaan giftarka halkaa soo wada fadhiisanayaan oo inay noqdaanba 5,000 ba noqdaanba ka badanba giftarka fadhiisanayaan ka hadlaya oo wax diraya waxaa la rabaa shaashadu inay ka muuqdaan 100 milyan oo kownis ka badan halkaan lagu dhuftaa 100 milyan ka badan habeenkaa 100 milyan baa inoo ballana soo 16 kun ma olin iskoora 100 milyan oo iskoor aynu dhiganaynaa haddana waxaa imaanaysa irir soomaaliya saad aroos buu dhigan kartaa challenge bay ka dhacaysa halkaa iskoor baynu xiranaynaa waa 100 milyan heerkii lagu galbiyey maamulin iyo hanafkii saasoo maamulin alla ciise iyo waawowgaygii caaganaha ikusoo marayo sheego ka soonkamay oo ciidda kuma socona nimanbu cagaa la helay cida dhanoo manbuu celbiyala u furay arooska habeenkii baraamarkaasaan ku furaya maxaa ka bedeli kartaa markaas annagu waxaan leeyahay inta adag arooskeeda ka moodaa waa gabadhii ugu horreysay arooskeeda ka baraamartay because waa gabar daarood way dhacdaa hal uurkana oo inta adag waa gabar daarood inta adag way dhacdaa salaamaya jaajka iga dhacaya no hard feeling dadka hoos joogo no hard feeling dimaanshaga iyo abtiliibaanna waa salaamaya waaya aan ku soo laabana toobigeyni dad waa ma helay waayahay waxa weeye waxaa soo gala baraha bulshada caawa waxaa soo indheindheeye meel walbaan soo fiiriyey markaa meel kasta soo arkay waxaa soo gala qolka dhulbaanta waa qol warsingil lagu caayo waa qol lagu caayo waa qol lagu caayo nimankii la ogaadeen waa qol waaga hore qolalkoo dhan isaaq baa lagu caayi jiray hadda caawa waxay ka shan tahay daaroodkii bay caayayaan waxaa soo gala qolal kale iyagii baa iscaaya oo meegsu wata oo reer hagan iyo naaleeye axmed soo caaya iyagii baa bahar same iyo jaamac siyaa soo caaya meeshiiba dhiiqo dhulbahantaha ba firjijeerkooda qamri basaa laga helaa qamri dhaxamiya ka buuxa mawaali hiritiga ay u dhasheen bay qabaan masayid maxamed cabdilla xasan baa caayay oo habaaray waa tii aan maqla sheeka dhahayso sayidkoo leh wax fudud oo faraskayga ahayn necbiya macnaha ma fudeedkii waalida u dhasheen maxaase ka jira warka sheegaya in saciid cabdulaahi dani uu afcad ugu sheegay oo ku yidhi maamulka puntland soo raaca dhulbahantow wax u dhexeeya somalilan iyo puntland ma jiri doonaan maxaase ka jira wararka sheegaya in guurtadii ama garaadadii dhulbahanta u tegeen warsangeli oo ay ku dhaheen maamul aan wada dhisanno ee ama madaxweynuhuna aan ka dhigana tookaysi oo halkaasi aan wax leeqaato ma ka dhisanno maxaa ka jira wararka sheegaya
inay warsangeli daarood ama warsangeli harti ama warsangeli mataqaanaa ay iska diideen warkaa oo dhaheen anagu dad waalwaalan oo kulligoodba hirtiga ahaan u dhashay waalid u dhashay oo aan miir qabl lahayn wax ku darsamayno warsangeli baa la yiraahdaa bad baan haysanaa waxaanu bahasho u socotaana waa badeena iyo deegaankeenna mana soo gashaan annagaana isku filan saa ay dhaheen